Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalaha qiimaha sharafta leh videogan daawanaya waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan. Maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidada ay leedahay ilinta isha soo saarta, faa'iidada ay isha u leedahay maanta ka hadlaynaa insha Allah. Sidoo kale waxaan ka hadlaynaa ilinta meesha laga soo saaro, meeshay marto, shaqooyinkay qabato, inta ilinta waxa ay ka kooban tahay, waxaas dhan ayaa ka hadlaynaa insha Allah. Ugu horeyntii ilintan oo isha soo saarto meesha laga soo deeyo waxaa la dhahaa lacrimal gland qanjir ku yaalo isha korkiisa oo isha qaybtaas sare saa ugu jeedin ku yaala ayaa laga soo saaraa glandigaasi. Qaabab glandigaasna glandiyo badan ayaa ayuu ku xiran yahay oo loo yaqaan Cruz and Wolverine. Laakiin isha glandiga ugu weyn oo laga soo saaro waa 95% waa glandiga lacrimal glandiga. Inta soo haro waxay soo saaraan 5% oo ay soo saaraan ilin ah. Laakiin lacrimal glandiga waa glandiga ugu weyn soo saara ilinta. Sidoo kale ilinta 3 layer ayay leedahay. Outer midka ugu horeeya layer loo yaqaano lipid layer, middle layer oo loo yaqaano aqueous, iyo inner layer oo kan ugu dambeeya loo yaqaano mucosa. Haddaan ku horumarno outer layerka oo loo yaqaano lipidka inta badan waxaa laga soo deeyaa qanjir la dhahayo mammalian gland. Layerka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa lipid, waxaa laga soo deeyaa mammalian gland. Isha muxuu u qabtaa marka? Isha shaqada u qabto waxaa waaye inuu sameeyo evaporation, inuu ku sameeyo lubricant, inuu isha awood u yeelo markii oo ishaan la isku laalaabayo. Awooddaas waxaa yeelaya glandigan. Lacala hadduu glandigan oo dhibaato ku dhaco waxaa dhacaya evaporationka dhanaa meesha ka baxayo oo isha dhan dry ayay noqonaysaa. Sidoo kale middlekan layerka labaad waa layerka ugu weyn 3 layer, waxaa loo yaqaana aqueous. Waxaa laga soo deeyaa lacrimal gland. Lacrimal gland hadaa idin soo sheegaa laga soo deeyaa shaqadiisa inta badan wuxuu sameeyaa secretion ayuu sameeyaa. Lacala hadduu dhibaato kan ka gaarana waxaa dhacayo secretionka dhibaato ka dhacayo. Waxaa kaloo leeyahay antimicrobial ayuu leeyahay, protein ayuu leeyahay, lysosomes ayuu leeyahay, antimicrobial dhammaan ayuu leeyahay oo bacteriayaashaas isha soo galaa iyo ayuu layerka inta badan shaqada qabto waa. Sidoo kale layerka ugu dambeeya layerka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa mucosa layer. Kan waxaa laga soo deeyaa layerkani waxaa soo saaro goblet cells oo conjunctivitis-ka iyo cornea epithelium-ka ku dahaarna soo saaro. Inta badan wuxuu sameeyaa inuu qooyo cornea, inuu qooyo lubricate, inuu ku sameeyo cornea ayuu sameeyaa. 3 layer ay leedahay ilintani oo tear filmkan. Waxaa jiro shaqada ay noo qabato intaan galin. Waxaa jiro ilinta maxay ka kooban tahay. Ilinta waxay ka kooban tahay volume-ka ugu badan waxay ka kooban tahay protein la dhahayo albumin protein la dhahayo ka kooban tahay. Percentage-kana waa 60% ayay ka kooban tahay. Sidoo kale waxaa kaloo ku jiro immunoglobulins oo hypersensitivity jirka oo IgG-ga 40% ayay ku jiraan. Sidoo kale waxaa kaloo laga helayaa pH-ka oo tear filmka inta badan waa 7.35. Shaqada noo qabato, shaqada ilinta isha u qabato waxaa kow ka ah horta inay smooth ka dhigto surface-kan oo isha inay smooth ay ka dhigto. Sababtoo ah isha mar walba isga gedinayso saan isku leexjinayso waxaa awood siinaa ilintaas. Haddii ilinta meesha ka baxdo waxaa jiro waxaa la dhahaa qofka 15 jeer inuu sameeyaa la rabo nus daqiiqaba bar minute walba waxaa la rabaa 15 jeer inuu isha sameeyo. Hadduu qofka sameeyo waxaa dhacaya xaalad isha inay qaleel gasho ay noqonaysaa. Inta badan waxaa jiro qaleelka isha inay qaleel noqotana xaalad aad iyo aad u daran waa oo isha dhibaato weyn soo gaaraya oo waxaa dhibaato gaaraya corneadan madowdan oo isha meesha ugu muhiimsan ayaa dhaawac gaaraya. Sidoo kale waxay qabataa waxyaabaha ay duulduulay waxaas ay ilintaas qabataa oo aad iyo aad ay muhiim u tahay. Waxayna kaloo sameysaa nutrition, waxay quudisaa ilinta cornea iyo conjunctivitis-ka quusa. Sababtoo ah cornea waa avascular oo xidid ma laha. Cornea waxay inta badan ka qaadataa tear filmka ayay ka qaadataa. Ilinta markii la soo daayo waxaan hadda ka hadlaynaa meesha isha maraysa ayaa maanta ka hadlaynaa. Sidoo kale waxay ku soo maraysaa meel la dhahayo horta lacrimal passage ayay soo maraysaa. Lacrimal passage ay soo maraysaa oo wuxuu leeyahay upper and lower band ayuu leeyahay. Kadibna wuxuu soo galayaa hole la dhahayo clanicus. Clanicus-kan wuxuu usii gudbinayaa wuxuu ku xirayaa lacrimal sac. Lacrimal sac-na inta badan toos wuxuu ugu sii xirayaa nasolacrimal duct. Marin waxaa waaye oo nasolacrimal duct oo toos u galayo into the nose toos u galayo.
video maanta waxaan kaga hadlaynaa muhiimadda isha maaragtay elinta u leedahay iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay. Waa idinkaga mahadcelinaya daawashada videogan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.